hambalyo aleena kunjar iku manager in badan sida dadka bulshada ay aadka ugu wanaagsan ugu falceliyeen ama arooskii ay ayuuna qori ama xaajigeeda cusub waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol hambalyo in badan ayaan dhihi karnaa وأروس دتيو آذيات أفرا بدن أما بلشو آذيات أفرا بدن كفل عليسي أما في العلن آذيات وقروح بدن كجود بسي أما كسميان وأنا وحلو بها إن بدن إن أمر والبا وحي وناكسن أم وحي لوجود فراسي هاي أمر والبا على هان ترى أما شخص هان الفعل فعل أما فعل آذيات وقروح بدن أسميسو وأنا وحلو بها إن بدن بقول كيف بقول سيدا هرا لو ذا أوجا أما بلشة الصوماليات آذيات وذا أوجا دبعتني دنك السوشيال ميديا لوجو جسي قبل ama markii hore waxa lagu hilmaamay ama ay lagu ilowsiyay arooskeeda cusub ama nolosheeda cusub ay yeelatay ama waxyaabaheeda cusub ay ku soo bir shakhsi ahaanteeda iyada waana wax markaas loo baahan yahay in badan boqolkiiba Soomaaliyeed ama dhalinyarada sida ay u wada kaceen ama ay arooskeeda ama xafladeeda ay garabkeeda u istaageen waa wax aad u qurux badnaa in ay markaas ay iyadana ay darentay farxad aad u far badan ee lagu hilmaamsiiyay dhibaatooyinkii ama dhibkii ay soo martay waqtigii hore adkaa ama waayihii aad ku adkaa waa aroosyadii dhanka baraha bulshada ugu saameynta badnaa ama aad u caansanaa ama saameynta aad u far badan yeesha way iska jiraan aroosyo aad u far badan ee maalintii wandey dhaco oo maalintii ay iska dhacan 200 aroos laakiin aan yeelan wax saameyn ah ama wax buunbuunis laakiin kan wuxuu yeeshay saameyn aad u far badan waxna ka dareemi kartaa sida iyada ahaan qalbiga loogu dhisay ama garab istaag ahaan loogu sameeyay waana wax ay bulshada ama dhalinyarada reer TikTok ama dhalinyarada reer Muqdisho gaar ahaan aan dhihi karno ay muujiyeen in ay aad u garab taagan yihiin ama ay ku wada farxeen waana wax qof walbo dhalinyaro ah ama qof walbo dhanka social media oo ku jiro aad ugu farxay in badan kun iyo manager waxaan leenahay hambalyo in badan sababtay tahay mar walba waxa qurux badan ama mar walba qof ahaan lagaga baahan yahay in aad ku farxdo walaalka ama walaashada farxadeeda ama in aad ahaan aad dareensiiso in aad ku faraxsan tahay si iyadana markaas ay dhoolacanteeda ama ay mar walba ay aad u muujiso bulsho aad u far badan ama dhalinyaro waxa iska jirtay ee dhanka iyo TikTok ama dhanka YouTube kaskabada dheh in ay ka soo caytama ama ahaan ama gabadhan ahaan u ka faayeen ama ay dhaleecinayeen laakiin lama joogo waqti xaadirkan ama waqtigan just know in aad dhaleecayso ama aad ahaan iyada aad ka soo horjeeso marka uu faraxsan yahay in aad la farxdo ama aad u muujiso farxad in badan mar walba qurux badan laakiin qofkii uu faraxsan in aad dhaleecayso ama aad dhibaatooyinkii hore ama hore ku dhaleecayso waana wax aad loogu qurux badan yahay in badan boqolkiiba boqol ayaan dhihi karnaa waana wax just ahaan shakhsi ahaantaada aad ahaantaa xitaa ku wanaagsan in badan sababtay taadiyo faraxsan ma jeclid in lagu soo xasuusiyo waxyaabihii hore ama waxyaabihii noloshaada hore ah